aabba ka tirsan ciidamada dawladda Soomaaliya ayaa habeenimada xalay ahayd xaafadan Digfar degmada Hodan ee magaalada Muqdisho waxa uu ku dilay wiilkii uu dhalay kadib markii la sheegay in uu jiray buuq dhinaca qoyska la xiriiray. Dilka ayaa yimid kadib markii aabbaha dhalay wiilka iyo wiilka uu muran ka bilowday eedada aabbuhu qabay soo kala dhaxgalay eedaduna ay dalbatay in wiilka guriga laga ciiriyo aabbahana wiilkiisa uu ka dalbaday in guriga uu isaga tago balse wiilku taasi ka biyadiiday taasi oo xalay keentay in aabbuhu wiilkiisa xilli saqdhaxa dilo sida ay sheegeen dadka deegaanku. Jooga maasantiin aan wada badan ahayd wiilka dhintay ilaa uu xariistay wiil aan yara oo xaafadda ku soo koray gabar uu qabay aamish digneed iyo gabar aabiis qabay xogaadu raalahaas isku la iska arkay gabar way baxay safar ay too maqnaa asaa joogay xogaa eedda wiilka xogaa arki weysay aaban xogaa hadda ku diray laba jeeraan gartooda galnay anigu habeen hore waa galaan ka shala waa galay oday waa la hadlay wiilkaas sida u dhaamaayay ma gartay odaygu hadda waa qof wax ka dhacay lama cili karo waan uu fal eedda ka dambeysay waxa ninkan ku dhintay maskiinka eedda aaba ka dambeysay saas abar xaalad daba saa aaba marka waa telefoon tiri hal wiilka guri albaab garaacay imaw oo yimidna soo hubo yimid wiilkiisa dhihi kara gacanta qaba kara aaba xabad ku soo bilaab xabadtaasna ku dhintay wiilkeen Allah uu naxariis wiil yara xaafad la yaqaan waa eelayliya eedooyinka qaar waaye ay dhan ma la dhigi karo dadka dad wanaagsan ku jiro eedooyinka qaar oo ilmaha wiilkaas wuxuu dhintay sabab naag aabiis ee leedahay naag aabiis qabo sabab ee leedahay uu dhintay aabiis ku dirtay isku dhac badan deegaanka ka sheekeynay dadka deganaa dariska la ahay isku dhac badan kadib waxa dhacday in wiilkii aabihii oo sababsado subxaanallah dhacda xanuun badan waaye horta walaahi waa ka xumahay aniga gabar Soomaaliyeed inay saameyso ani waxaan dhihi aabaha ma dili karo walaahi la dilaa dhilahaasina wiilka xaasuu lahaa already waa ninkeedu ka dhintay mugti aabihina wuu dilay wiilkiisu iska dilay inuu waalay dadkan darooga ma cunaan maxaa ka khaldan cabtuur miyaaniyo waa fahmi waayo walaahi cunugaadi aad dhasho ku soo tiiri tacabeesh maanaag darteedu dil kartaa hayb ka weyn ma jirto inaan naag darteedu disho wallaahi bilaa waa ka xumaada aniga hayb ay la noqotay waxaan isdahay waxay yihiin waa la yaabee tolo naagta ma sixirta odaga ileen nin caqligiisu taam yahay wax kasta u saxan yihiin wax kasta okay u yihiin ma dhici karto in cunugiisa oo dilo sababtoo ah cunugaana saa dhalay mugta adigu ay daawanaysaa ma dileeda cunugaaga absolutely ma awoodid inaad dishid cunugaaga qofkaaneeti maskaxdiisa wax ka khaldanaayeen I think inuu sixran yahay I think inuu daroogeysan yahay I think inuu wax baa khaldan ma fahmaysaa oo qof tamaam ah cunuga ku soo diray tacabeelay soo korsaday 25 jir 26 jir gaarsiistay jacayl farxad soo siiyay soo tarbiyay dugsi dhigay u soo dhigay quraankii maxaa la markuu dhameeyay iskuulkii geeyay sida intaas oo waqti cunugaaga inta gelisay ma dhici karo inaad disho mugta ee waxba khaldana wax khaldan in la soo baaro waay marka aabaha ma sababtaas iska leh mise waxa iska leh wiilka oo dhinta sababtaas malaan aniga ka sii darabo والله مسكحدي مقمقن تهبو ويلك ملهان كرو سبحان الله eedooyinka qaar marka waa arxan laawayaal waa dad xun waa dad cadiifad balaayo ku jirto waa dad aan la ogeyn sababta ay waxaan oo dhan u sameynayaan ma fahmaysaa war ninkaaga tusaale ahaan ninkaaga di awlaad ilaahay siiyo awlaadaas iyo kuwa adi dhasho soo islama dhalan maxay ku kala duwan yihiin cunsurnimo Soomaa naag kala dhashay ee ka fikrooyaan saasa u maleena waa yaabanaani cunugaaneeti adaa dhalay sax cunugaan ninkaaga dhalay sax
isku mid makuu ahoo hee hadda maxay isreeryihiin cunugaalka masaakiinta dembiyaa laga gelin ilmaha dembi ma laha haddii maxaa lahaa hooyadiisa xarash u haysa xataa iska cafi waa ceeb waxyaalaha qaar walaahi waa wax laga xumaado yacni in adiga cunug dhan oo miskiin oo ilaahay ifkaan keensada sabab adi aa leedahay ifka looga wado wax wanaagsan maaha wax laga fiican yaha waaye adduunya aakhirana kala badan gabadhii waxaa samaysana dee waxaan leeyahay waa helaysaa ciqaabteeda iyo mudankii adiga aa laheyd waxaana adduunyo waaye wax qiimaa ma lahan already qofkii godob galo maalinaa looga jarayaa ama ifkaa lagaaga jaro ama adduunkaa lagaaga jaro ama ifkaa lagaaga jaro ama aakhiradaa lagaaga jaro saaka anaaba ka dhacsanbo ma fahanteen ilma adeerayaalo marka waxaan idin leeyahay gabar kasta oo Soomaaliyeed waxaan leeyahay haddii ninkaagu ilmo soo dhalay ha colaadinin ha faquuqin ha kuu sinaadaan ilmaha waa ceeb kama afweyna akhlaaqiyadii naxariista hooyada xataa ciyaalka dhashay oo adi cunugaa dhasho haddii aa barto wax wanaagsan kuu sameynaa haddii aa barto wax xun kuu sameynaa marka maybe inuu ku dhaga adkaato cunuga kugu dhaga adkaado hadduu kugu dhaga adkaadane iska barbari hooyo saan maaha sax maaha dareensii cunugaaga iyo cunugaas inay isku xuquuq yihiin laakiin hadda adi waxaa dhashay curadkiiniba haddii aabihiis gacantiisa ku sababsatay sabab adi aa leed waxaa dhashan waxay kuu taraayaan malaha mid ku anfacay moog walahi ani waxaa aqaanaa gabar ninkeedii ilaahu naxariistay uu ka dhintay way isla weynaadeen yacni waqti badan isqabeen ilmo hore oo soo dhalay ilmihii hore korsatay ayadana 2 cunug la ilaahay siiyey 2 cunug midna shaqaa loo furo midna dalka laga waday gurina waa loo dhisay waa loo kala kiciyay xajka waa la geeyay maasha Allah marka ilmaha weeririn ma ogid mid ku anfacayo absolutely wax ku anfacayo ma ka taqaanid ilmaha iyo waqtiga ku gaarsiinayaan kuwa adiga ilmaha aa dhashay hadaa kala gudbato laftigoodaba cuqubadooda leh way la socotiin soo maaha marka waa ceeb waa faaxish waa wax laga yacni yaxyaxoodo hooyo Soomaaliyeed dhibsi in nafta laga gooyo oo adduunkan laga musaafuriyo cunugaaseed inay sabab u noqoto Allahumma najana gabdhaha Soomaaliyeed fariin ku socoto weeyaan tani fadlan iga gaarsiiya gabar kasta oo Soomaaliyeed oo muuqaalkan daawato ninkaagu laga yaabay caruur kale in Ilaahay u qoray oo aadan hooyo u ahayn ma fahantay ama dib ha ka yimaadaan ama gadaal ka yimaadaan inta soo fahantay Soomaha marka haddii dib ka yimaadaana qalbiga ka nicin waa qalad dambi ma leh ilmo yuhuud hadday dhayihiin xataa dambi ma leh wallaahi bilaahi ilmo saqiir waa miskiin waay qofka sidaa ka dhigatoona kuu noqonaya fadlan ha colaadinina ilmaha oo dhibka ka daayo faquuqa iyo dilka iyo rafaadka aa gelinaysaan ka daayo maalin dhexdaas waxaan arkaya gabar oo hadda aan sheegaynin cuntada laga dhameysanaa hooyadeed way kasoo tagtay aabaheeduna qabay way maatay cuntada laga dhameysanaa ciidaha dariskii oo imaana cuntaa u baahanahay walaalayaalo cuntada liiga dhameystay waxaas ceeb waay cunto la iska dhameysanayo iyo cunug dad waalid lagu diraayo inaa xataa si aabiis kala khariso wax ka fiican ma laha oo abaalku ugu hayo wallaahi eedada ka fiican ifka masaarna si iisoo korisale dembi hadaa gala xataa oo ii ceeb qarin jirta ilaahay dembigaaga dhaaf inuu dhaha waaye salaamullaahi calaykum dhammaantiin aad baan idin jecelahay one love guys assalaamu calaykum waan idin salaama dhammaantiin meel kastood joogtaan iyo xaalad walbood ku sugantihiin waa masaakiintiina sihaam oo saacad kastay kuu tahay wacan oo wanaagsan dhankayga alxamdulillaah waa nabad qabaa walaalihii igu soo biiray
waxaan leeyahay shukran yaa walaalyaal iga dhe yaa asxaabteeda quruxda badan. walaahi maalmaha waa inka maqnaay, hooya iga xanuunsan, igu soo duceeya. xoogaa xaalkan iska sisiyo iska ahay. walaal please sidaa ii taageerteen, walaalaha kale ii taageereen, ii taageer. waxaa tahay saaxiib wanaagsan, fadlan subscribe-ka ii saar. intaas kadib waxaa idin wadaa muuqaal aad u xanuun badan. waxaa ka hadlayaa wiil masaakiina iyo aabihiis. wiilka Allah u naxariisto, horta wuu dhintay, waxaana dilay aabihiis, askari ka tirsan dowladda Soomaaliya. waa dhacdo xanuun badan oo ka dhacda Muqdisho. inaa lillahi wa inaa ilaahi raajicuun. marka waxaan leeyahay